رئيس الوزراء الصومالية حمزة عبد البر وحال مقالة مقدشو كل هاللاي بقولال كميد الدليرة الصوماليات ayaa u bareeray inuu carabka ku dhufto guuxii maalmaha socday ee ahaa in qaar kamid ah xubnaha mucaaradka ee dawladda shisheeye ka soo qaateen lacag ay rabaan in ay qallaasay ku galiyaan dalka. Xamse waxa uu sheegay inay og yihiin dawladaha xilligan oo kale ay soo goodo beertooda iyo xubno siyaasiyiin ah oo loo yeeray wax yarna la soo siiyay iyaguna ay aqbaleen dhibaateynta qarxinta in jilbaha lagu dhago dawladnimada Soomaaliya. dawladaha ficilkaasi ku kacay ee taabagelinaya mashruucan cusub ee fawdo hubeysan lagu gelinayo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo guud ahaan dalka ayuu sheegay ra'iisul wasaare Xamse inay marar badan taaka u dhigeen dawladnimada Soomaaliya. hadafkeeduna waxa ay sheegeen inay diidan yihiin in ay Soomaaliya la soo baxdo kheyraadkeeda oo isku filnaato wuxuuna ummadda Soomaaliya ugu baaqay ra'iisul wasaare Xamse inay hal meel ugu soo wada joostaan cadowgaas. hadaba sidee u aragtaa adiga?